waxa la dilay cali maaha buu yidhi bal iskaba dhaafe waa shaydaan suuradiisa loo soo ekaysiiyey ama cali miyaa cali samadu koray buu yidhi shiicanimada xadgudubka iyo waxa la midkaahi meel ay asal ka dhigteen firq badan oo daalaahi bay noqotay furus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد إن شاء الله تعالى وحاينو ما أنت أين هذا كسي ودي دونا درسي لبعض أينو كمدة حلقاتكي أما كلمديها كجا هدلني الشيعة يوحيين افتيمنتي كومنيدا إنه الشيعة كجا هدلني درسي هو واحد كجسوا هذا اللي بل تعريف الشيعة يحل جاي صوت ظاهرنا يموقتين يعدي تأسيس كذا لهيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أي ضعيفدان ama firqadani ay sheegayaan inay u yihiin gargaarayaal ama atbaac u yihiin iyaal beedkiiba xilligiisii mawaaqiftii uu ka qaatay iyo noocyadii ay ahaayeen waxay noogu dambeysay ninkii mu'assiska ahaa ee asaasay firqadan saynu sheegnay oo afkaarta ugu badan lahaa iyo bilowgeeda ee yahuudiga ahaa Cabdullaahi ibn Saba in amiirkii muuminiinta Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu uu masaafriyay meesha la yiraahdo Madaa'in oo waxa weeye Ciraaq bariga Ciraaq magaalo ku taal weeye Madaa'in halka inuu masaafriyay waana waxaan insha Allah ta'ala markaa maanta ka hadli doonaa intishaaru tashayyu في بلاد فارس فافتان كوكفافي تشيع أي مذهب كالشيعة بلاد فارس بلاد فارس وحلي هذا جغرافيا وأنتي دولة فروس كاي حكومة شرتي دول كاي حكومة شرتي وحلي هذا دولة وينيد فروسكا دولة فروس حضنا ووضن كان إيران اللي هذا بأكمله iyo meelo kale sida waxa weeye bariga Ciraaq oo bariga Ciraaq oo kale iyo Afghanistan iyo dhul badan meelo kale fara badan way soo galayaan laakiin juqraafiyan waxa la yiraahdaa waa intii ay xukumi jirtay dawladda Furs marka sababaha uu ugu faafay oo u saldhigtay madhabkaasi bilaada Furs ama Faris oo hadda meelaha ugu badan oo madhabkan laga haystaa tashayucu waa wadankaas waad aragteen oo wadanka ugu badan oo waxa weeye tashayuca qaaliga qaybtiisa ugu badani uu ku mataqaana waa weesha la yiraahdo Iran Furs waxay ahayd ummad weyn bay ahayd Furs oo quwadihii xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo islaamka labadii quwadood waa weynaayo adduunka mid ka mid ah bay ahayd oo Ruumaankii iyo Furs مسلمينتو waxay furteen bilaada Furus ahdigii Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Umar al-Faruq dawaa'if iyo kooxo badan oo kamid ah reer Furus diinta islaamka soo galeen si kooxa qayb badan oo kamidihii waxay nubuq ku yeesheen oo mataqaana ay si fiican door weyn ugu yeesheen hogaaminta uga dhex muuqdeen hogaamintii jihaadka iyo cilmiga culimo yeesheen oo dowr weyn waxay ku lahaayeen jihaadka iyo cilmiga labadaba oo baac dheer oo raasakh ay ku lahaayeen iyo fadli weyn bay ku yeesheen laakiin arintaas la jirkeeda bi'adani waxay ahayd bi'o sidaas oo kale asal u noqotay in badan oo kamid ah firqada daalada ah ee luuqsanayd sababaha ay firqada daalada ah uga bilowdeen ama jaanisada uga heleena waynu tilmaami doonaa oo waxa weeye oo kamid yahay marka firqadan shiicada ama waxa loo yaqaano bitashii' al-ghali waxa weeye shiicanimada xadgudubka iyo waxa la midkaahi meel ay asal ka dhigteen firq badan oo daalaahi bay noqotay Furs
marka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu markii uu masaafuriyay oo Madaa'in Abdullah ibn Saba uu diray ninka Abdullah ibn Saba ayaa maakarka ahaa wax raadayna iyo wax kuma aysan yeelan cuqubadii oo kuma uu sawaantoobin suulintii la suuliyay ama waxa weeye wax la midka bal iska dhaafe kama uusan suulin ama kama waantoobin waxa weeye dhibaatooyinkii iyo khuraafaadkii iyo wixii uu waday bal iska dhaafe waxa la yiraahdaa wuxuu helay fursatun cudma fursad uu ku fidiyo oo ku faafiyo uu ka helay bilaad faris dalaalaadkiisii iyo waxyaabihiisii lunsanaa oo deegaanka ka faafiyo wuxuuna ka helay taqabbul ama waxa weeye qabuul weyn buu ka helay waxa la yiraahdaa wuxuu la kulmay bi'a khasba ama bi'o buu helay dihin oo mataqaanaa wixii la doono lagu dhex faafin karo oo sababaha uu afkaarta ugu faafiyeen oo inuu arki doonaa afkaarta tashiica iyo wax la midka iyo qayb badan oo markii ka mid ah waxyaabihii yuhuuddu ay qabeen marka dhowr sababood baa ka mid ahaa baa la yiraahdaa sababaha ilaa 3 sababood insha Allah ta'ala baynu taaban doonaa sababaha ugu muhiimsan sababta koobaad oo Abdullah ibn Saba u fududaysay inuu Faris si fiican ugu faafiyo madhabkan waxa ka mid ahaa dadka bilaada deganaa oo ahaa dad ajami ah waliba xadiis al-ahdi bil islaam islaamnimadu ay ku cusub tahay oo nafahooda aanay ka bixin ama aanay mataqaanaa ka nadiifoobin waxyaabihii rawaasibtii aqaaidii saabiq ahayd iyo waxyaabihii xumaayo aqaaidii hore ku jiray aanay ka bixin xadiis al-ahdi bil islaam marka waxay ahaayeen bulsho u nugul ay dacwo kasta iyo yeerma kasta iyo wax kasta oo lagu xamaas gelin karo oo qalbiyadooda lagu dafi karo oo lagu kaxan karo waayo dad xadiis al-ahdi bil islaam way ahaayeen oo jahli baa jiray qodobka labaad waxa ka mid ahayd oo sababaha u fududeeyay ka mid ahaa dadka reer Furus qayb badan oo ka mid ah gaar ahaan dadka asxaabul manaasibka iyo maalka waxay ahaayeen kuwa islaamka ka hor qaba uqdad iyo xiqdi daran islaamka u qaba islaamka iyo ahlkiisaba waayo waxay arkayeen oo ay aaminsanaayeen oo mataqaanaa ay arkayeen islaamku inuu dawladoodii weyneyd oo Furus u riday xadaaradoodii uu dumiyay diintoodii uu taatiray oo baabiyay majuusiyada ahayd markii ay awoodi waayeen ay mustaxiil noqotay inay ku wajahaan awood waxay u leexdeen dariiq kale oo ah taamur iyo takhdiid inay mataqaanaa mu'amaro iyo qorshayaal sirri ah oo islaamka ay daaqilka ka duminayaan oo dhexdiisa ay afkaar khaldan ku faafinayaan ay waxa way qayb badan oo kamid u jahaysteen waxaan kale oo iyaduna wax la hilmaami karo aan ahayn yahuudu waxay ahaayeen daa'ifo muhiim ka ah shucuubta farisiga oo iyaguna cadaawada islaamka u qabeen inuu garanano waxa kamid ah asbaabaha u fududeysay Abdullah ibn Saba inuu ku faafiyo bilaad al-Faris dadka reer Faris dabiicadoodu waxay ahayd taqdiisu al-usra al-haakima inay la taqdiisiyo oo la weyneeyo qoysaska xukunka leh oo boqortooyooyinka iyo xukunka ka soo jeeda iyo in lagu talax tago lagu xadgudbo khuduuca iyo suduldhiga ilaa la gaaray xad ilaah laga dhigto oo ilaahnimadooda la gaaro waana dhaqan ay iska dhaxleen oo mataqaanaa ay cajiib weey waxyaabaha cajiibka waxa kamid ah sheekh Dr. Maxamed Musa Sharif kitaabkiisa waxa weeye الترف واثره في الدعاة والصالحين أو كنت الماما يا مركو كورم أيوه دولتها تلف كي مدحنا من إسكت ترفانو تذكر هو صنعاني وحبقي ما iyo wax ka hor imaada iyo shacabka kula imaan furus baa kamid ahayd bulay marka taasina qayb bay ka qaadatay marka wuxuu ku guuleystay inuu mataqaanaa inuu afkaarta ka dhaadhiciyo oo ahlu beydkii iyo cali iyo inay suldada iyagu lahaayeen iyo barnaamijkaas iyo ka dhaadhiciyo marka saddexda qodob aynu soo sheegnay
oo arkaanta iyadoo la cuskanayo oo ah jahli dadkana xadiisul ahdi bil islaam aha xaqdigii iyo caradii waxweeye cuqdadii islaamka u qabeen iyo guluwiga ay xadgudubka ku jiray tacdiim iyo taqdiiska ah ee weynaynta ah ayaa Abdullah ibn Saba ninkii loo oran jiray wuxuu ka aasaasay Faris caqaa'ida intii ugu waaweyned caqiidada hadii firqadan la yiraahdo firqa raafida waxa weeye iskala dirna shiica waa waxyaabaha uu ka faa'iideystay ka mid ah waxaan markaa tilmaami doonaa sidee bay uga faa'iideystay maxaa ku tusaya waxyaabaha ku tusaya asbaabtaas uu helay iyo jaariskaasi asarka iyo raadaynta ay ku yeelatay caqiidadii tashayuca natiijadii jahliga islaamka ay jahliga ka ahaayeen qodobka koowaad aha oo marka lagu daro dee waxyaabihii afkaartii majuusiyada iyo wixii hore ku dhex jiray waxay keentay in caqiidada shiicada laga helo ay gaadho waxa la yiraahdo xulul marka caqiidada xulul ittihaad oo ah ilaahay subhanahu wa ta'ala an allah ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu dhexdego ahad min khalqi fi ahad min khalqi ahad kamida khalqigiisa iyo dadku waxa khalqigiisa makhluuqaadkiisa kamida inuu dhexdego uu ilaahay ku dhex jiro ayay waxa weeye aamineen marka ta'ala allah an dalika uluwan kabiran wa arin aad iyo aad cajiib oo jahligu meeshu ka gaaro ku tuso waxyaabaha waa Abdullah ibn Saba ku tusasa in mataqaana arintaas jahliga ka faa'iideystay waxa kamid ahayd waxa weeye Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu waxyaabaha uu ka faafiyay oo dadkaas u sheekeeyay oo waxa la yiraahdaa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu markii la dilay oo uu dhintay radiyallahu anhu ninkii uu dilay khawaarijka ahaa Abdurrahman ibn Muljam waxa dhacday baa la soo sheegay warkii baa soo gaaray Ali ibn Abi Talib la dilay dabadna wuxuu yiri Abdullah ibn Saba in al-maqtula laysa aliyan bal shaydan tasawwara bi suratihi waxa la dilay Ali maaha buu yiri bal iska badhaafe waa shaydan suuradiisa loo soo ekeysiyay ama Ali miya Ali samadu koray buu yiri waxa weeye dawruhu dul soconaya buu yiri marka waxyaabaha cajiibka uu yiri waxa kamid ah waa an al-barqa sawd والرعد صوته wuxuu yiri hilaacu waxa weeye waa warankiisi waxa leeyahay waa shabuugiisi racdiga iyo onkadkuna waa codkiisi wasawfa yarji'u ila al-ardi wuxuu ku soo noqon doonaa dhulka buu yiri fayamlauha adlan kama muliat jawran dhulka wuxuu ka buuxin doonaa cadaalad sida markii hore jawr iyo dulmi looga buuxiyay arintaasina waa arin shacairta laga helayo majuusiyada oo waxa weeye waxyaaba ihtifaal bin nayrus oo kale iyo waxyaabaha kasii ka mid ah natiijadii xiqdiga laftarkeeda waxa marka taas hore wuxuu uga faa'iideystay natiijadii jahliga iyo xadiis al-ahd bil islaamki waxyaabaha uga faa'iideystay kamid ah natiijadii xiqdiga ka dhalatay xiqdigii majuusiga ahaa wuxuu oo iyaga ku jiray reer Faris Abdullah ibn Saba ka yahuudiga wuxuu awooday inuu maleego ama uu geliyo ama uu ka faa'iideysto inuu quluubtooda geliyo cadaawadii saxaabada radiyallahu alayhi oo xiqdigii hore iyo waxa islaamka u qabeen iyo wadac fiihim in la duro saxaabadii la duro laga sheego gaar ahaan amiirkii muuminiinta Umar ibn Khattab radiyallahu anhu amiirkii muuminiintu saadogsoontihiin ciidankiisii xilligii uu khilaafada hayay ayaa bilaad al-Faris la furtay oo xilligaas baa saldanadahoodii la burburiyay oo uu sheego saldanadihiin burburiyay waad ogtihiin oo xitaa ninkii Abdullah al-Majusi nin majuusi oo asalkaas uu ahaa ninkii dilay Umar ibn Khattab radiyallahu anhu sida macluumka ah la yaqaan marka waxyaabaha uga faa'iideystay waxa kamid ah xiqdigoodina wuxuu uga faa'iideystay in saxaabadii lagu diro mataqaana la dacniyo oo mataqaana laga sheego oo de hatta ka hor waad garanaysaano saan hore u soo sheegnay de maqtalkii Ismaani iyo suu mataqaana uu uga qayb qaatay natiijadii quluwiga iyo taqdiiska saadada iyo kubaraaga taana wuxuu uga faa'iideystay oo iyadana natiijada ka dhalatay waxay noqotay inay nooca ahaayeen
inuu kaga faa'iideysto oo ka dhaadhiciyo oo geliyo dacwadii uluhiyada cali in cali ilaah yahay iyo inuu xaq u leeyahay isaga iyo ahlu beydkiisu khilaafada marka arintaas way ku xadgudbeen oo quluub bay ku sameeyeen daa'ifadani ilaa ay gaarsiiyeen fi tacdiim al-a'imma waxaynu arki doonno a'imma ay tacdiimiyaan baa jira ilaa waxa weeye la yiraahdo rafacuuhum can martabati al-malaa'ika ilaa la yiraahdo waxay dhaafiyeen oo kor u dhaafiyeen maktabada malaa'ikta iyo nabiyada waxa la yiraahdaa bal wasafuuhum bi sifaati illaah ta'ala bal waxay ku sifeeyeen a'immada sifaadka ilaahay subhanahu wa ta'ala wal iyad billah waayo sida tusaale ahaan hadalkooda ay yiraahdaan baa la yiraahdaa waxa weeye in mataqaana wax waliba iyaga u khuduucayaan inay yihiin macsuumuuna can sahwi wal ghafla wal khada sahwiga iyo qaflada iyo khada iyo gefka inay macsuumiinka iyo kuwaan ku dhicinahayn marka waxa weeye khilaafada waxay ka dhigeen xaqan ilaahiyan maxfuudan li cali wa durriyati xaq ilaahiya wa cali iyo durriyadiisa mataqaana lagu ilaaliyo u xiran oo cid kale mataqaana aan hawaysan karin waliba waxay ka dhigeen weynaynta iyo mataqaana xadka ay gaareen ahad arkaan diin ama mid kamida arkaanta diinta iyo usuushiisa waxa la yiraahdaa waliba si gaara waxay qadiyadaas oo waxyaabaha keentay markaa inay ay nooca noqdaan halka ay gaaraan oo waxay u tacasubeen baa la yiraahdaa li Hussein ibn Ali radiyallahu anhu iyo durriyadiisa akthar min baqiyati ahli bayt si ka badan ahli baytka kale bay u tacasub jireen gaar ugu tacasub jireen laana maxaa yeelay Hassan waxa la yiraahdaa Hussein de Hussein ibn Ali wuxuu qabay gabadhii boqorkooda Kisra guursaday waa la yiraahdaa ma fahamtay hadda waxa kale oo kamid ah waxyaabaha nataa'ijta ka dhalatay inay barnaamijka qaataan yahuuda oo iyaguna awood ku lahaa oo calaamaadkii yahuuda qayb kamid waxay ka muuqataa tashayuc oo Abdullah ibn Sawb barnaamijkan isagu asaasay qadiyada ka muuqatay bay kamid tahay aqaayidii yahuuda qayb badan oo kamid ah waxa kamid ah marka aqaayida tamthiilkii iyo tashbiihii baa kamid ah oo waxa weeye baa kamid ah waxa kamid ah aqaayida yahuudu lahayd oo tashayuc ka dhex muuqdo yahuuduna saameyn ku yahay barnaamijka ka dambeysay oo yahuudu waxa aaminsan tahay annahu sayukhruju fi aakhir zaman masiix in la soo saari doono marka oo yaxkumu alcaalama bishariicati daawud dabeedna uu ku soo masiixu yahuudiyu soo saari doono yaxkumu alcaalama bishariicati daawuda dabeedna uu ku xukumi doono adduunka shariicadii nabiyullaahi daawud oo loo soo saari doono wasiiro asxaab min asxaabi muusa kamid ah nuur loo daari doono caqiidada shiicadana waxa ku jira in al-mahdi al-muntadir mahdigooda muntadirka ay dhaawaa la sugayaa inuu isaguna yaxkumu bixukmi daawud nabiyullaahi daawud xukumkiisa dadka ku xukumi doono oo wasiiro min qawmi min asxaabi muusa الصادق النور loo sheeg doono bayaguna aaminsan yihiin yahuud waxay aaminsan yihiin oo kale oo caqiidada shiicada ka muuqata waxa kamid ah waxa la yiraahdaa jawaasul badaa Allah ta'ala oo ah ilaahay subhanahu wa ta'ala waa arin aad u xun ilaahay inuu amar bixiyo dabadeedna ay u muuqato amarkaas inuu khada yahay oo khalad yahay fayamuru bi khilaafi dabadeedna amarka mid khilaafsan uu hadana amro marka ilaahay subhanahu wa ta'ala waa arintaas waa wuxuu ka nasahan yahay Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah ta'ala aqaayida waxaynu mawduuca inoogu xigaa biidnillah uu noqon doonaa aqaayida ay shiicadu aaminsan tahay laakiin qaybtan waa qayb aynu kaga hadlanay maaragtay madhabkan iyo asbaabaha keenay in mataqaana uu ku faafo bilaal faris marka sababaha ugu waaweynaa waa jahligii iyo xadiis al-ahdi bil islaamka ay ahaayeen iyo taqdiiska ay weyneynayeen oo yahuudiga uga faa'iideystay maaragtay ay dadka rasuulaha iyo usal al-hakim ay weyneynayeen oo marka waalbeedkii halka uga faa'iideystay iyo xiqdiga islaamka u qabeen oo
iyadana natiijada dhashay inay saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam caayaan cadaawad u qaadaan iyo waxa la mid ah iyo saamaynta afkaartii yahuuddu ay ku yeelatay oo ninkan iyo yahuuddii kaloo saamaynta ku lahaydba afkaarteedu ay ku yeelatay sababahaas baa ugu waaweynaa ilaa iyo maanta bilaad faris ay noqoto meelaha asalka u ah madhabkan tashayuca inahaas baan insha allahu tacaala ku joojin doonaa xalqadeena labaad sali allahuma wasalam calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin